waxaa hadda soo baxay xalqadii 3 xayeysiiskeedii labaad, waxaana lagu arkay waxyaalo cusub oo yaa badan. waxyaalahaasna waxaa ka mid ah kuwaan soo socda. soo laabashadii Ayjuul. waxay dad badan isweydiiyeen soo laabashadii Ayjuul iyagoo dagaalamaysa oo la dagaalamaysa kuwii Byzantine. taas macnaheedu waxay tahay in ay caafimaadday oo ay hadda caadi soo noqotay, inta ay qabiilka reerkay ay ka fogeed ay soo wanaagsanaatay. waxaan sidoo kale aan ku aragnay Seljan oo ilmo yar dhabta ku haysa. haddaba ilmaha yar rumiya oo iyada dhashay mise Mongooli ama Byzantine ayay iskaga luminahaysay oo ay iska dhigisay gabadh ilmo yariisa oo wadata, isna dhab ahaan ayay u dhashay ilmaha yar. waxaan sidoo kale aan aragnay Gunduz oo fiicnaaday oo walaalihiis la taagan oo caafimaadkii uu soo noqday oo xanuunkii ama dhaawacii uu ka badbaaday. waxaanan arkaynaa Cusmaan oo shirqool dhigay ama daban dhigay si uu dagaal u tago oo isagoo iyo saaxiibadiis oo shiir haya oo Allahu Akbar leh markaas dagaal u socda. waxaan arkaynaa dagaalka dhexeeya Safaaji iyo Cusmaan iyagoo oo weli aan saaxiibo noqon, aan dhexdooda iswaafiqin oo weli is haysta oo askartiina ay la dagaalamahayaan. waxaan arkahaynaa in la kashafay sirtii Manoka oo loo sheegay aabihiis in uu khaa'in yahay, uu carshigiisa u damcay. kan wuxuu ahaa mulakhaska xalqadda iyo turjumadeedii oo Soomaali ah. xalqadda ama xayeysiiska oo faahfaahsan oo baaritaankana laga dabagalay. waxaan ku kulmi doonaa barnaamijka ku xiga. iminkana daawasho macaan fiidiyowga. Gibi getirecek, şöhreti, bunlardan kurtulur. Bunu hak ettiği gibi getirdik.